بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلياش عيد مدى قرن كي بليسكا بهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت حكى الله يا سيدا إنه دور قبنا بعد الدين نحدين تلحيدة فوش حميد أي كجوريدين لبدي سركال من ذاك ترسنا عيدا كقرن من ذاك ترسنا عيدا كبليسكا dhacday 29 bishii hore ee afraad 2019 marka ugu horeysa waan tacsiyadeynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba iyadoo horena aanu tacsiyadeeyay labada sarkaal ee ciidamada qaranka ka tirsanaa maxaan ku dhahday geeriyooday 29 bishii hore in Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo qarankana samariya iman ka siiyo ehladii qaraabadii ay ka geeriyoodeenna waxa leenahay Ilaahay samariya man idin ka siiyo idinkana cawl khayr qaba idin siiyo waxaan kaloo ka tacsiyadeynayaa labada taliye iyo labada ciidan ee qaranka iyo booliiska ee ay ka tirsanaayeen asluubta iyagana waan ka tacsiyadeynayaa samariya iman in Ilaahay ay naga siiyo arintaas intii ay dhacday مسؤولين فرابدن iyo ehel iyo qaraababa waxay isugu tageen magaalada Og waxaana lagu aasay si qaran loogu aasay magaalada Og waxa ilaa iyo maalintii shilkaasi u dhacay ilaa iyo maanta ku jira hawlgal lagu baadi goobayo ragii maxaan ku dhahday fuliyay hawshaas saraakiisha ku geeriyootay iyo dadkii kale ee maxaan ku dhahday gacan saarka la lahaa maanta waxaynu gacanta lagu hayaa saddex ka mid ah ragii hawlgalka fuliyay iyo 10 nin oo xidhan oo loo haysto abaabulayaal gacan siin taakulayn iyo rag baadhis ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen 10 ninna waa la hayaa waxa maxaan ku dhahday kala oo la hayaa gaadiidkii maxaan ku dhahday nimankaasi ay ku hawlgaleen na waa la hayaa 4 gaari oo kamida gaadiidkii lagu hawlgalay iyo hal gaari oo gaadiidkii maxaan ku dhahday hawlgalku markii uu dhacay taakulaynta maxaan ku dhahday sameynay intaas gacanta lagu hayaa baadhitaankii baa ku socda maxaan ku dhahday sharciga maxaan ku dhahday ayaa la horgeynaya waxaynu ognahay deenu haddii qaranka reer Somaliland waxaynu nahay qaran curdina oo aan caalamka la aqoonsanayn wali dawladeena Somaliland sifaha iyo qaabka aynu doonayno adduunyada in aynu ku qancino in Somaliland la aqoonsado waxa weeye waa nabadgelyada iyo deganaanshaha qodobkaasi waa qodob bulshada caalamku international community ay ka marqaati furtay in Somaliland mandaqadan aynu ku noolahay kuwa xoreeya ee hawsha nabadgelyada inaynu maxaan ku dhahday aynu nahay waxa kale oo aynu doonaynaa in aynu maxaan ku dhahday adduunyada ku qarcino nidaamka dawladnimada hanaanka aynu doonayna inaynu maamulo inuu isaguna noqdo mid adduunyada indhaheeda inagu soo jeediya oo aynu maxaan ku dhahday aynu hawsheeda gallo sida la ajligeed arintan imika ayaantii dhawata dhacday waxay dhaawacaysaa nabadgelyo darrada aad iyo aad u dhaawacaysa xasilooni darradana way dhaawacaysaa qarannimadana way dhaawacaysaa waayo maxaan ku dhahday shilku wuu dhacaa siyaalo kala duwan buu u dhacaa laakiin kani wuxuu ahaa saraakiil ka tirsan saraakiishii qaranka ee qarankan u adeegisay sida la ajligeed ayaa culays fara badan maxaan ku dhahday loo saaray in ay hawshan culays loo saaro ilaa iyo imikana hawlgalkii baa lagu jira lagu baadi goobayay dadka maxaan ku dhahday hawlgalkan fuliyay intii hawlgalkani uu dhacay
waxyaalo fara badan baa saxaafadda laga sii daayey weliba gaar ahaan xisbiga wadani baa ka sii daayey waa xisbi qaran dowlad nimankan maxaan ku dhahdaa leebada sarkaale